in ka badan 1500 oo qoys oo maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab ay ka dhaceen xoolihii iyo beerihii isla markaana ay ka soo barakaciyeen dadkii deganaa 40 tuulo ee hoos tagta degmada marka ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa soo gaaray tuulada Buufow Bacaad ee degmada marka ee gobolka Shabeellaha Hoose. Qoysaskan oo u badan caruur iyo haween ayaa aan haysan hooy ay ka galaan dhaxanta iyo kuleelka, waxaana ka muuqata duruufo adag ee dhinaca nolosha ah. waxaana maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab ay ka qaateen xoolihii iyo dhulbeereedkii ay tacbanayeen, waxaana hadda ay la ildaran yihiin cudurro sida malaariyada, shuban biyoodka iyo cudurro kale, waxaana u dheer gaajo macluul ayadoona ay u geeriyoonayaan cudurka shuban biyoodka caruur. qaar ka mid ah dadkii soo barakacay ayaa ka hadlay dhibaatooyinka ay u geysteen maleeshiyaadka al-shabaab, waxayna ka codsadeen dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya, dowladda federaalka Soomaaliya iyo hay'adaha gargaarkuba inay la soo gaaraan gargaar bini'aadanimo. shabaaba joogta inta la dhahay dad ma joogay alidin imaan ninki joog u imaan waa ku gooriyayna aragyan buuru walaari mara inta ganay sipeer ka qaanay dana hala isku meesharo haaw isaaq aadan farangalunga sababtaanka kani al-shabaab hana barkiisay ko nolol ma ka haysana raashin jiif la'aan guri la'aan ee dhib ma haysana مسكولنا ندسي لا كراشين لا أنا هايست شاب نصوب برسي شاب وام بدا شاب لما قال مسكال أنت قطعنا هذي أنت شاب قال مسكال أنت قطع دكسا دجناي دكسي واب نصوب بركي كون لقينا هايسدي عبسوت جنالك حري markii lacagta la aruursid waay mooti la ku tawday iskool been ko furadan maalin balowdki 7,000 hantidii aaday aa kay taaween iyo hadda fiiriyo isku tawi ninka aniga qowsid ba jiray 84 sano hadda ba khiyaarta dhex jiray geedahayna qumba imbi liimo isbondees waxaas isku qaraabadaani tawar hadda geeg oo ka shaqaysano jawaalka dhawanan hadda ma haysano واي بأودني شاكذا إلها أود له تانين دبعت هذا نني صوبي ما يبغى بركة عن مجا حسن علي عبد تولد شفيل بركة أو الشباب أوجد أنكو صو بركة عني بيرهن يوم على بيتكين al-shabaab ayaa mar walba waxa ay dhac dil handadaad u geystaan shacabka Soomaaliyeed ayadoo horay qoysas sidaan oo kale ay u soo barakiciyeen al-shabaab ay soo gaareen degmada marka ee gobolka Shabeellaha Hoose. Muuse Cusmaan Abtow, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.